maanta waxaa alla mahadiis ah in madaxweynuhu uu saxiixo axdiga qaramada midoobay xuquuqda dadka naafada ah Soomaaliya Oktoobar 2 oo sanadkii hore ayaan dawladda Soomaaliya wasaaradda u saxiixday aan u saxiixay si taasna waxay ahayd ballanqaad ay Soomaaliya suubinaysay inay rabto inay ka mid noqoto habraac ayaa jiro oo loo maro axdiyada xuquuqda oo qaramada midoobay markii oo saasoo kale loo soo saxiixo waxay u wareegaysaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka guddiga arrimaha dibadda ayaa baarlamaanka horgeeyay ayaa falanqeeyay dhageysi dadweyne ayuu suubiyay kadibna wuu ansixiyay marka maanta waxaa alla mahadiis ah gabagabadeedii maanta inay tahay oo ah in madaxweynuhu uu saxiixo taas ayaana maanta dhacday madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta saxiixay taasna waxay soo gabagabeynaysaa habraaci soo socday maantana si oo maaragtay dhab ayay Soomaaliya axdigaas u saxiixday axdigan wuxuu muhiim u yahay sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay qaramada midoobay sidaas darteed axdiyada adduunka in laga mid noqdo waa muhiim sida la socotaan sanadkii 2018 madaxweynuhu wuxuu saxiixay sharcigii dhisidda hay'adda dadka naafada ah taas ayuu saxiixay waxaa kaloo hadda ay wasaaraddu ay maaragtay gabagabo u ah oo ay mardhow soo dhameyn doontaa sharcigii weynaa ee xuquuqda dadka naafada ah kaas oo taaban doono dhinacyo badan dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada xuquuqdooda shaqada marka waxay noqonaysaa sharci weyn oo arrimahaas oo dhan maaragtay ka shaqeeya taasna way soo dhamaan doontaa